لو قولي بر برعو ما قيمه والله لو بقولي بربادي ووصي سكر وراي شيء كده راتك سعتين ما فهم سنينه ورا أنو هذه أنو أذيك يا تيرتو ورا أنو هذا دراويش سمعتين دراويش تداتير يا تاجر سنتين يا إنك سور جدا أنا واحد تاجر سنة من الصومالية هيه أوجي كل سجال بقول كوي لا تك فرس يسوي سارن بالدقي وين قرتي فرس سوق صارن هذا يرغني كوي لا بتشوقنا ما أقرأ له كوي سياشكي ولا دولة الصومالية كوريمي أسلمت سوي يلا ويلس تاريخ ضمن عصر وين قرتي تاريخ بعد لذيهين صومالي تاريخ بعد كل لذيهين دراويش بهنجرتين سيد عبد الله حسن بن سومري نقول كاسكو دغالم جيري دراويش تمغي درابد وطان حد الصومالي نمدا سيد aragtaan maamulada Soomaaliya ka jira Puntland Somaliland waxa la sheegaa in aad u kala qaybsantihiin oo meelna ku tiirsaneen marka aashaas hadaa iga jawaabto ana kaaga jawaabay haye anagu Soomaali baan nahay waxa ay tahay 18 gobol iska xirmay aan ka weyn Soomaali anagu ma liin kuwan calaamadaha leh hadda haye kuwan dhinacyada calaamadaha kule sida Puntland Jubaland ملين سومالوين بتاجرسنتين سومالوين بتاجرسن وان قرت waxaan maqlay magaalo yiraahdo buuhoodle inay joogan ciidamo badan oo dawladda Maxamed Siyaad Barre ka haray oo meeshaas xarumo kule saliig xarumo kule oo meeshaas maxaan ku cidna aan ka amar qaadanin adigu Mr. Usman ma ifafaahin kartaa ciidamadaasi maadaama nin tahay reer buuhoodle ah waxa ka jiro masaxba ciidamo miya meeshaas yaalo aku sheegaya aye dawladda Soomaaliya markay dhulka ka talinaysa waxay leedahay saldhigyo ama ciidamo ama qaybo kamid ah ciidamadii Soomaaliya waa gartay ciidankan wuxuu kamid yahay ciidamadii Soomaaliya halkaas dawladdu kaga dhacday bartiimuna jooga inay ka amar qaataan waxa ku raadayay dawladda Soomaaliya siyaad dambe kadib malahan waxayna u taagan yihiin oo rajo ka qabaan inay mar u arkaan iyagoo halkoodii sidii uga hawlgali jireen sidii Soomaaliya hadda uga hawlgalo kuma la dhexmelmin waxyaalaha ka dhacay dalka oo ciidamadan la kala diyaaristay la kala controlistay waa ciidamo isku duuban waxa kamid ah saraakiishooda waxa kaaga soo qaada waxa waa dhamaantood gobolada Soomaaliya ka soo jira sidii bay u dhisay aad baa ma sata kaas wuxuu ahaa Mr. Usman Farax عثمان فرح oo ku degan faqadaan maanta hadda nin la yiraahdo faqade oo ku magac dheer asnade faqade oo asna nin masuul ah asna nin rabbuhoodla ah ba halka ila fadhiyo caawa aan ku martiqaaday qolkeyga meesha ma ku cashaynay ma sha Allah faqade soo dhawow ku soo dhawow TV-ga wadaway korneel xabad TV-ga korneelka waxaan ka weydiinayaa adiga ka faqade ahaan sidoo aragtaa waxa Soomaaliya maalmahan dambe ka socdo maadaama nin rabbuhoodla tahay madaxweyne cusub baan dooranay Soomaaliya maxaan ku raahdaa de farmaajo yaraado dadkii dal iyo dibad waa la taageeray kii jigjiga joogay kii Gaarisa joogay baka Gaarisa hada lagu hayaa sheekada baka Gaarisa madaxweynaha lagu hayaa Soomaaliya waa israacday adinka reer qaatuma isteedahan sidoo aragtaan soo dhaweynta madaxweynaha mana soo dhaweysan annagu qaatuma isteedahan hadaan nahay maamulka qaatuma isteed madaxweynaha cusub ee la doortay aad baan u soo dhaweynayaa dawladda federaalka Soomaaliya marka waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow aad baan u soo dhaweynaynaa waa taageersanahay wadanka madaxdii looga baahnaa baa tahay marka waxaan leeyahay madaxweyne in badan baa dadka shacabka ah ay kugu hamiyeen oo rajo ka sugayeen oo kugu adiga kugu dhalayeen ilaahayna waa u rumeeyay riyadoodii ay ku hayeen iyo wanaagay ku hayeen iyo riyooyinkoodii ma sha Allah faqade marka waxaan leeyahay madaxweyne marka ugu horeysa talaabadaada qaad anu madaxweynaha la dardaarmaya talaabadaada qaad ugu horeysa ciidankii xoogga Soomaaliyeed waa inaad dhistaa meesha aynu ka dhimanay waa xagga ciidanka madaxweyne marka madaxweyne waxaan ku leeyahay ilaahay kula garab galo ilaahay xilka culusada qaad ilaahay kula garab galo annaguna waa ku taageersanahay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waanu ku taageersanahay أنا كسومالي وأنا أودي ماشي وأنا أودي من دورنا إن شاء الله آمين ساسوي مستر فقد ما دام أجوكت قربو سيبا طلك جرمال كأت كونو شاي مقال لي أنا شوان فورتي ما حد جعش هاي إن أدي ودن كادي إن أدخل لابطة ما جعش هاي سوماليا ما حد جعش هاي إن أدخل لابطة ما حد جعش هاي ودن كاني إن أتكبرته أما دي ودن كي دلك يدودي مركز ودن كدب أو نقطة سوماليا أدو فايدة صدق كادي دلك هذا إن شاء الله هرت إنك ودن كان عن شوقه وعن شعرها إن marka safarka horeeya boo'ina wadanka Soomaaliya kadib haye wadanka wax aan wadanka ka bartay aan u soo aaday marka hore imika aan isleeyahay ka baro
aan barto inaan kula laabtaan jeclay oo dalkayga iyo dadkayga wax u qabto waan gartay maxaa jecesha inaad noqoto mustaqbalkaada mustaqbalka maxaa hiigsanaysaa mustaqbalka waxaan isleeyahay waa inaan waxaan noqonayaa haddii ilaahay ila garab qabto waan ku rajo weynahay oo hadda waxbarashadeedu ku jira inaan noqdo hogaamiyaasha u sarreeya madaxweynaha wasaarahoo kale ee dalka hogaamiyaasha u sarreeya dalka inaan xilka qabto Soomaaliya inaa xilka Soomaaliya ka qabato oo hogaamiso oo baad jeceshahay dalka Soomaaliya aad ka bixiso dadka dhibaatada iyo dee abaarta iyo dee nabad la'aanta iyo colaadda iyo adiga bulshada aad u faa'iideyso intii aad qurbaha joogto waxa soo baratay insha Allah korreyn xabad aad iyo aad baa u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Mr. Faqade haddana waxaan ku laabanaynaa Mr. Cusmaan su'aalo yar baan ka iloobay Mr. Cusmaan markaa dalkii waddanka dib ugu laabato maxaad jeceshahay inaad noqoto ama aad barato والله هنا حبط كورنا السلام عليكم ورحمة عليكم السلام نيو دلك أنا وحنا وغني من كان السيدو أنا أما فكرة هيجا أما وحنا قفل بري بولي أما هم بولي قرتي أنا هلك وحنا بينا وحكبرتو وكمل نقودتك مستقبلك هجامي الصومالي مستقبلك هجامي وحنا نسكت يا ريجا هلك كنا كسمي halkan inaa ka samayso oo hogaamintaadi iyo maxaan ku raahdaa bulshada aad wax u qabanayso halkan aad ka bilowdo Jarmalka dhexdiisa halkan aan ka bilowdo qolkan aan ka bilaabaya hadii aan insha Allah ma sha Allah